waxaanu wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii xogta dahsoon oo aynu daaha kaga qaadayno sida xaal noqonayo haddii ay xulafada Maraykanka oo dhami yeeshaan hubka nukliyeerka. waase maxay sababaha keeni kara inuu dhaco tartan loo galo yeelashada hubkaasi iyo inay meesha ka baxdo kalsoonidii lagu qabay xulafadii lala lahaa dalka Maraykanka ee barnaamijka. wadamada haatan hubka nukliyeerka haysta waxay ka kooban yihiin 9 dawladood oo laba ka mid ay yihiin cadowga Maraykanka kuwaasoo kala ah Ruushka iyo Shiinaha halka sidoo kalena uu ka mid yahay wadan Islaama oo ah Pakistan. haddaba maxay noqon kartaa haddii wadamo kale ay go'aansadaan inay helaan hubka nukliyeerka si ay uga hortagaan halista ku iman karta? maxaase ku kalifi kara wadamadaasi inay tallaabo noocaas qaadaan? saadaalaha noocanihi waxay isu rogeen doodo dhaba 4 sannadood ee la soo dhaafay taasoo ay ugu wacnayd siyaasadii madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump ee uu ula baxay America First ama America awalan taa oo sii fogeysay cadowgoodii oo mid adag ka sii dhigtay sidoo kalena weeqday kalsoonida xulafadii Maraykanka ee ku tiirsanaanta Washington iyagoo Maraykankii u muuqdeen saaxiib aanay xulafadiisii isku halayn karin xilli ay weliba xulafadaasi waajahayaan khataro dibadeed oo ka dhana amniga dalalkii ka tanaasulay hamigoodii samaysashada nukliyeerka inkastoo ay lahaayeen awood u suuro gelinaysay inay samaystaan. majalada Foreign Affairs ayaa iyadoo ku eegaysa aragtida Maraykanka waxa ay warbixin ka samaysay mawduucan aynu ka hadlayno iyo waxa iman kara haddii wadamadii la xulafada ahaa Maraykanku ee isku haleeyay hubkiisa nukliyeerku ay haatan u tafaxaytaan inay isku tashadaan difaac ahaan oo helaan hubka nukliyeerka oo ah hub ka hortag loo isticmaalo oo dawladuhu u samaystaan si aan iyaga loogu soo weerarin maadaama haddii dawlad hubka haysataa mid la mid ah lagu soo weeraro ay iyana ku jawaabayso taa darteedna aanay cidina cid kale oo haysata ku weerari karin. wadamada aan lahayna ay badankoodu heshiisyo difaaca nukliyeerka kula jireen wadamada haysta si ay uga difaacaan haddii lagu soo weeraro hubkaasi. majalada ayaa warbixinteedii waxay ku bilowday saadaal ku saabsan aragtida mustaqbalka ee 2030ka. warbixinta ayaa waxay leedahay sanadka 2030ka waxaa laga yaabaa inay jiraan 20 dawladood oo nukliyeerka haysta waana tiro 3 jibaar u dhiganta tirada wadamada hubka haysta sanadkan aynu joogno 2021. waxaana loo badinayaa in wadamadii hore uga tanaasulay hubka ee saxiixay xakamaynta faafitaankiisu ay heshiisyada ka bixi doonaan kadib markii ay waayeen oo ay meesha ka baxday isku halayntii ay ku qabeen wadamadii la xulafada ahaa ee hubka haystay. waxaana tirada wadamada hubka haysta ee 3 laamaysa ay kordhin doontaa suurtagalnimada cabsida laga qabo in dal ka mida wadamadaasi uu hubka xoogga leh qarxiyo. aragtida noocana ayaa sii kordhaysa iyadoo khatarta hanjabaadaha quwadda nukliyeerku ay ka soo badanaysay bariga dhexe iyo qaaradda Aasiya tobaneeyadii sannadood ee u dambeeyey. sannadihii 60meeyadii ee qarnigii ina dhaafay Washington waxay ka welwelsanayd xulafadeeda Aasiya iyo reer Yurub ee u heelanaa inay yeeshaan hubka nukliyeerka. xilligaa saraakiisha sirdoonka Maraykanku waxay saadaaliyeen in bartamaha 1970meeyada laga yaabo inay quwadaha nukliyeerka adduunku u dhaxeeyaan 10 wadan ilaa 15 wadan. waxaana si gaara loo tuhunsanaa inay hubka samaysan doonaan wadamada kale ah Australia, Jarmalka, Talyaaniga, Jabaan, Kuuriyada Koonfureed iyo Turkiga iyadoo heshiiska faafin la'aanta nukliyeerka iyo mamnuucidiisuna uu ahaa mid loogu talagalay in lagaga hortago suurtagalnimada saadaalaha jiray. iyadoo wixii ka dambeeyay markii heshiiska la saxeexay 1968 ay 4 dal oo kaliya ay samaysteen hubka kuwaasoo kala ah Hindiya, Pakistan, Israel iyo waqooyiga Kuuriya. guusha laga gaaray xakamaynta hubka nukliyeerka waxaa qayb weyn ka qaatay dalladihii nukliyeerka ee ay wadamadii haystay u sameeyeen xulafadoodii taasoo loogu ballan qaaday in lagaga ilaalin doono weerar kasta oo nukliyeera ama in lagu cabsi geliyo.
sidaa darteed waxay dalalka caalamka badankoodu go'aansadeen inaanay samaysanin hubka nukliyeerka. laakiin hadda waxay dib uga fikeri karaan go'aankan iyadoo tusaale ahaan xulafada Maraykanka ee Aasiya iyo Yurub ay labaduba waajahayaan khatar militari oo kaga imanaysa quwadaha hubka nukliyeerka haysta, maadaama Shiinaha iyo Ruushku ay noqdeen kuwo gardarro badan oo casriyeeyey xooggooda nukliyeerka. oo tusaale ahaan Ruushku qayb ka mid ah dhulka Ukraine oo ah jasiiradda Crimea uu ku darsaday waddankiisa, qayb kale oo ka mid ah dhulka Ukraine uu u qabtay jabhado mucaarad ah oo asal ahaan ka soo jeeda qowmiyadda Ruushka, weliba iyadoo Ukraine ay ka mid ahayd jamhuuriyadihii uu yaallay hubkii nukliyeerka ee midowgii Sofiyeeti, oo markii midowgaasi burburay sanadkii 1991 hubkii nooca ahaa ee yaallay Ukraine loo raray dhanka Ruushka si meel la isugu geeyo oo fiditaankiisa looga fogaado. laakiin nasiib xumo waxa uu Ruushku maanta ugu itaal sheeganayaa Ukraine ay tahay hubka nukliyeerka laftiisa. Maraykanka waddamadii la xulafada ahaa waxay u arkaan isagana inay ka baxeen oo ay Washington ka baxday heshiisyadii muddada dheer lagu xakamayn lahaa hubka, iyo inaanay Maraykanku hadda u muuqan kuwa u heelan ka qaybgalka arrimaha adduunka. arrimahaasina waxay ka dhigtay xulafadii Maraykanku inay ka fekeraan inay weli ku sii hadlayn karaan Washington difaacooda iyo amnigooda, ama inay tahay wakhtigii laga tashan lahaa ee waddan waliba uu samaysan lahaa bam nukliyeera. wakhtigan naadiga nukliyeerka oo ah waddamada haysta hubka nukliyeerka ee heshiiska lagu xakamaynayana saxeexay waxaa ka mid ah Maraykanka, Ingiriiska, Faransiiska, Ruushka, Shiinaha, Israa'il iyo waqooyiga Kuuriya, iyadoo Israa'il ay tahay dalka keliya ee aan si rasmi ah ugu dhawaaqin si rasmi ahna u diidin haysashadiisa hubka nukliyeerka, halka ay Hindiya iyo Bakistaan oo hubkaa haystaa aanay ka mid ahayn naadiga maadaama aanay saxiixin heshiiska lagu mamnuucayo fiditaankiisa. Joe Biden waxa uu isku dayayaa inuu u xaqiijiyo xulafadiisa inay dhinac taagan yihiin duruuf kasta oo jirta. madaxweynaha Maraykanka Joe Biden waxa uu ballan qaaday inuu hagaajin doono xulafadoodii, laakiin taa hirgelinteedu waxay u baahan tahay wax ka badan erayo la yidhi si loogu xaqiijiyo xulafada ballanqaadyada Maraykanka. waxay sidoo kale u baahan doontaa in tallaabooyin firfircoon la qaado si kor loogu qaado ku kalsoonaanta ilaalinta nukliyeerka Maraykanka, dibna loo soo nooleeyo iskaashigii difaaca ee xulafada, iyo in si buuxda looga fikiro xakamaynta hubkaasi. inta badan doodaha ka socda caasimadaha xulafada ee ku saabsan dalladda nukliyeerka Maraykanka ayaa faraha ka sii baxaya, xilli ay astaamaha walaaca xambaarsanina soo kordhaya. tusaale ahaan dowladda Jarmalka shaki ayaa ka jira isku hadlaynta ay isku hadlayn karto Maraykanka, iyadoo dowladdaasi soo jeedisay in la raadiyo wax u bedeli karaa damaanadda nukliyeerka Maraykanka. qaarkood waxay soo jeediyeen in lagu tiirsanaado dalladda nukliyeerka Yurub oo ka kooban cududda Faransiiska iyo Ingiriiska, isagoo Faransiiska oo ah dalka keliya ee midowga Yurub ku jira ee nukliyeer haysta uu ugu baaqay waddamada qaaradda Yurub guud ahaan inay qabtaan wadahadal istaraatiijiya oo ku saabsan ka hortagga nukliyeerka iyo suurtagalnimada ka qayb qaadashada tababarada nukliyeerka. dalka Bana waxaa ka jiray baaqiyo ku aadan xoojinta nukliyeerka Yurub, maadaama hogaamiyaha xisbiga talada haya ee dalkaasi uu soo dhoweeyey fikradda midowga Yurub oo ah inay yeeshaan awood nukliyeera oo leh hub fara badan oo u dhigma tan Ruushka. dareemo kuwa la mid ah ayaa ka soo baxaya Aasiya, sida Jabaan oo ah dalka keliya ee taariikhda la kulmay weerar nukliyeera, waxaana ka walaacsan tahay Jabaan kalsoonida joogtada ah ee dalladda nukliyeerka Maraykanka, gaar ahaan waddamada deriska la'ah ee nukliyeerka haysta oo noqday kuwo gardarro badan sida Ruushka oo ay ku muransan yihiin mulkiga jasiirado gobolka ku yaalla, iyo Shiinaha oo doonaya inuu wada hanto badda koonfureed ee Shiinaha. shakiga ku saabsan kalsoonida Maraykankuna ma aha wax ku cusub Jabaan. 1970 ayay Jabaan dib u dhigtay ansixinta heshiiska ka hortagga faafitaanka nukliyeerka, iyadoo diidanayd muddo ka badan 5 sannadood, waxaana ay ka baqaysay in heshiiskaasi uu sii wado u dabacsanaanteeda nukliyeerka, iyo in dowladda Maraykanka ay dhici karto inay ku filaan weydo damaanad qaadka amniga Jabaan.
maanta dareenka jabaan ay qatay waxaa sii kiciyey horumarinta quwadda nukliyeerka ee shiinaha iyo kuuriyada waqooyi ay gobolka ka wadaan iyadoo inkasta oo jabaan aanay si furan kor ugu qaadin suurtagalnimada in dalkoodu uu yeelan doono hub nukliyeera oo u gaara haddana waxay sii wadaa inay kaydsato maadooyinka iyo aqoonta ay uga baahan tahay inay samaysato oo si dhaqso leh u samaysato hubkaasi haddii ay si dhab ah u go'aansato iyadoo sidoo kalena ay halkaa yihiin waddamo kale sida kuuriyada koonfureed iyo austareeliya oo shaki ka qaba khatar kaga iman karta barnaamijyada ay shiinaha iyo kuuriyada waqooyi ku horumarinayaan hubkooda gaar ahaan ka nukliyeerka iyo gantaalaha riddada dheer ee xambaari kara waddamada oo maraykanka ka dalbanaya inay ka dhabeeyaan ballanqaadkoodii ahaa inay ku difaaci doonaan hubkooda nukliyeerka iyadoo tallaabo kasta oo washington ay gacan cusub oo militari ku siin lahayd waddamadaasina ay ka horimaad kala kulmayso dowladda shiinaha oo haatan ah quwadda ay maraykanku la gelayaan dagaal qabow oo laga yaabo inuu ka muddo dheeraado kii dhammaaday bilowgii sagaashameeyadii ee qarnigii ina dhaafay ee u dhaxayn jiray xulafada bariga adduunka oo uu hoggaaminayey dalweynihii midowgii sofiyeeti iyo xulafadii reer galbeedka oo maraykanku horkacayey